maama qurux oo ku salaam maandhowa ka qaadan isaga bartimaahiye maamadiyaan ee agu kala socnaadaano والله هوي أنا أنت وحيسي دير قف أهل الدين أنا هاي قبيتان مجرو قفكي قف متقانا قبو دباتو وإلهي وانونا أنا قبو كوما شيغين مالو هدقدقين أفقالك معناها هافافا وفهموا يا نو يقصعوا حيلك واليان هي قدال إيه فديس مقو أضغا عودي إتروا قرحانتا مقا إسكا صافرا نوبلانا أيا أدقا مركز الداوي ساعدنا لقى بلا أضغا كوفرديها أديكو هورتا قبادا بوتعاتا كودي حالة الروماتيكا وكوفا شلمي هذا كور نين بوتعا وحالا قبار مركي معنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدبا السلام أصحاب غالي لما أنتنا ملك سودون ويكتشفتين سودو هذا هل كان نقدر نسوي لك هيانتر واحد الله يا رمضان مبارك ما أنت برامج كانوا حمرتكوا مام رحمة أنت بدنا كان يويا قانن أبو أنت بيلا وحلا يا سودو ورتورين waan dhawahay waan ku faraxsanahay maanta inaan kanaalka ka soo muuqdo yaxyi waa macnaha kanaalada badana aan fiirsado ama aan taageersanahay ama aan yacni mar walba inaan ka soo muuqdo aan jeclay waan ku soo dhawahay caawo anoo hooyo ah dooran doono gabadhayda ninka ku haboon ila socod wanaagsan aad way barnaamijku waxa waaye maam raxma halkaas waxa joogan ilaa iyo afartaas wiil qof waliba wuxuu ku soo kala hadli doonaa in gabadhaada tusaale ahaan in gabadhaada xiriir oo kala dhaxeeyo muddo ugu dambeynna finalka iska tagleed in gabadha family-geeda la xiriiro maamadu waxay inoo matalaysaa booska family-ga oo ayagana waxay matalayaan waxa laga rabaa in aan aragno sidoo oo ku weydiisan lahaay gabadha hooyadeeda macna sidoo ula hadli lahaay qaabka ku weydiisan lahaay yarna qof waliba in aragna qaabkiisa waxa arki doonaa qofka ku haboon oo ayada isdhaado qofkaana ku haboon qaabka oo gabadhaada ku weydiistay ama qaabka oo kula soo yaani ku soo bandhigtay arintan qofkaana ku haboon qofka isleeda ayada waa arki doonaa barnaamijkeena intaas ku saabsan yahay channelkan subscribe ka saar si aad u socotiin muuqaalada xiga waa diyaarata u maleena aad u weyn diyaar ahay waayahay waxa la yahay muuqaalkan waxa ku duubeynaa waa har wanaag ramadaan mubarak aad leenahay soo dhawaada qofku horeey waxa la yahay welcome hello hooyo macno ku salaamay waa ka qaaday igaarkay ma sha Allah hooyo horta waxaan aad ugu faraxsanahay muddo kadib inaan kula kulmay gabadhaada wada soconay hal sano in badan waxaan dhigi jiray hooyo ila kulansi surprise aan kaaga dhigi jirtay caawa waxaan ku faraxsanahay gabadha inay geeska fadhido adigana hortayda joogto oo caawa yacni wixii qalbiga ku jira aan ku sheegan karo hooyo igaarkaygiioo soo dhawow anigu diyaaraan u ahay anigu gabartayda waxay la socotay inaan bartamaanto horeyba aheedbo inay cawado howshiina soo dhadhawaatal ka baro maba ahaynina waxay ahayd inaan maanta hore ii ka keento oo duqdu macsar muusa marisa aad tiraaho ma howshaadiyo hadda dhamaad inaad ii timaado maba ahayn ba igaarkaygiioo laakiin haddaan soo dhawoowo haddaan iska ka ogaaha waxa tahay soo soco xad ii sheegi rabtaa horta hooyo aad baa u mahadsan tahay waxa waaye gabadha dhankeeda iyo dhankaygaba xoogaa xiriir baa naga dhaxeeyay in yacni adi hawsha ay ku soo gaartana waxay ahayd wax xoogaan dhahan maamada surprise nooga dhigno maadaama adduunka hadda la joogo surprise iyo waxyaabo dhalinyaranimo hoose ay jirto waxaan maamada kadis baa nooga dhigaynaa laakiin waxaan ku kala soonahay xiriirkaani ayada naga dhaxeeyo gabar waxa waaye ahludiina oo fiican oo dhaqan wanaagsan leh sida darteeda wax badan oo saad ifaktay ma jirin ugu dambeyn horta farxadda iigu weyn waxay tahay hooyo in adiga aan kula kulmay aad baan ugu faraxsanahay gabadhaadana waxa waa wiil soo doontay baan ahay waxaan rabaa gabadhaada diinta islaamka siday ogashaa inaan ku dhaqdo sawjadayda xalaasha inay noqoto yacni in aniga mataqaanaa hoggaankeeda wiilkii daryeeli lahaa wiilkii ilaashan lahaa wiilkii adiga booskaada buuxin lahaa inaan noqdo haddii mar gurigaadaan kala tago arooy horta anigu sabarees ma aqaan sanad wax la sheegayana anigu maba helabo aadiyad waxaan aqaanaa afar cawaadii la isku yimaad cawadii shanaad inay wax walba la dhameysto
okay waxaas idinkay idin gaar ahaayeen gobol way okay maadaamaad cawada ii timid la igna kaa baray su'aalahaan ku weydiiyo haddaad ka soo baxdo oo mahaan raba soo troogsato anigu gabartaydi waa leedahay hadda igaaraana saan raba wax u yeelayn anhee gabartaydi iska siimayo oo kusoo tiiriya tacabeelay okay iweydii maamo su'aalaha way furan yihiin caawo amarkaada jiro insha Allah waxaan rajaynayaa inaan noqdo qof ka soo baxo wax adiga aad soo bandhigto hadda hana ila yaabino anigu habar heer baadiya oo goofaas laga keenaan ahay waxaan ku leeyahay igaarkaygiyo horto adigu magaciiga waa Cabdirasaaq maadaama ay ii soo sheegto way iska hubaa ha maama raxmal been ewel soo sheeg adiga maama raxmal ku dhaasoo maahan ha wallahi billah waa haya horta magaca nacam aadiyad maama raxmo ani magaciiga waa Cabdirasaaq oo soo dhaw ma dhuxad qabataa maama wallahi wiil shaqaystaanahay shaqada waxa ii sii dheer sida wax loo dhacsadana waa naqaanaa oo adi kulley dhowr meelood bal lacag iga soo gashaa oo hanta ha u baqin array shaqadu waa badan tahay amaad walaxaan meelaha laga sheegayo jidadka iyo tubahay rogaan la leeyahay ama ta maya sharaf iyo karaamo korkaada ahaad ku waldhaayanaani array waa rabaa igaar sharaf iyo karaamo korkiisa tahay wax ka wanaagsanna male ee waxaan ku weydiiyaa maandhow hadda inaad shaqaysataad ii sheegtay gabartaydana aad ku filantood dhaqa karto aadiyad hadda waxaa ku weydiiyaa hadda dhaqanka waa la iska bartaa oo dadka waxa waaye qabiilka waa la isku bartaa oo wax qaab daraama lah aadiyad maandhow hadda dadka qaarna waxa waaye anuka waxaan nahay ninaa taqaan guuri waxa taqaanay dhalaani aadiyad waruntaada gabartayda aan waxaan aqaan inaan siistaan rabaahe waa ku saxanta Soomaali iga jirta ma ii sheegi kartaa wallahi Soomaaliya yes reerkayga inaad ugaata marabtaa caadi ma ku sheegaa reerkayga misdeegan man ku sheegaa labadaba waa u fahmi karaa okay ani waxaan ahay wiil shiiqaalaanahay oo reeyo qudubba dhal culum soo dhawow igaarkaygi hadhow hadaad wax weysana ku taabkaad ku dhaqayo soo quraamisaad boqolkii laga siiyad waxaad leedahay unuku cidiyaano waa soo quraamayna sharaf iyo karaam gabadha isbitaal dheexa waa loogu keenaa jeeb dhaqan ma leena gabadha anaga isbitaal ma bogeyno fiir gabadha guursanayo isbitaal lagu ma dadejiyo maadaama awow to abay culimo yihiin gabadha waa la quraan saaraya waxa waa caafimaadkeeda habi gabartayda baahi u dhimame soo dhawow waxa waaye cid faraysaadna ii sheegto haddaan cid xun iima sheegin inaad shaqaysatana waa ii sheegtay waxaan ku weydiiyaa anigu gabartayda waa gabaraan aniga soo korsaday oon dhaqaaleystay oo diinta iyo dadnimadaba iyo xisayntaba aan ku soo tabcay maandhow horta adigu waalidkaa ma joogaa haa way joogaan hadda ma waalidka hal la deji rabtaa ama sameelaad la degi kartaa gabartayda wallahi hooyo saan kuu sheegayo horta gabadhu haday dhahdo ma taqaana gooni baan u degayaa diyaar baan u ahay haday dhahdo waalidkaada inaan la dego waan rabaa diyaar baan macnaha every option uu furan yahay ha maandhow waxaan kaloon ku weydiiyaa hadda anigu hooyaan ahay waana ogtahay hooyo wax walbo waa ogtahay reer lagu dhaqo aadiyad hadda amaad kuwii xilagubaha ahayd tahay oo gabarta iga kiiskiistaa wallahi hooyo ani inta waxay si dheer qof ahlu diin aan ahay gubitaan ma jiro qofkii qof ma taqaana gubo dhibaatada oo ilaahay waan ognahay aniga gubo kuma sheegin ma dhow degdegin afgaalka macnaha hafaha u fahmoyaano ay ku soco xilaguba ama taan ku iri xilaguba ma taqaan horta xilaguba yaani qof aan mas'uuliyad ka soo bixi karin macnaha qof kululo karkaro gabarta mugay hal kalma tiraaba gafuurka jabaa ama ta may reer dagaalmi ana halaan ku fiican horta reer dagaalmi wallahi gabadha mis dagaalayno laakiin maam hal su'aalan ku weydiina marka maadaama su'aal oo gafuur ay ku jirto gabadha wax ma ku ogtaadi maya gabartayda anigu waxaan jeclaa igaar ii dhaqaale oo ii koolkooli oo ii kabkaba iska jeclaha ma ahane laakiin gabadha hadaan nin kale ku arko midalan anoo zawjadeeda ay tahay hadaan nin kale ku arko oo meelaha ay warwareegayso gafuur waa imaana gafuur jabis hal sanay kula socotay xaynin kaluula haldi weyda maandhow adaa sheegay hal sana inay kula socotay halkaasna nin aadan ku soo arkin hadda free ka ta maadan la'aana raali noqo wallahi raali noqo wallahi السلام عليكم وما واكو سلامي
calaykum salaam igaarkayga soo dhawow waa dhowahay inantaada muddo badan baan wada soconnay maamo wax badanna waa sheekaysanay ugu dambayn waxay noqotay inaan adig kaa soo doono maamo haddii waxaan doonayaa inantaada Faadumo oo aan muddo 2 sano iyo bar wada soconnay inaad igu dartaan doonayaa maamo see u aragtaa igaarkayga soo dhawow gabartayda Faadumaana mid waxa waaye midaas jaaja maandhow intaas soo carabtiina socotiina magaca adigu aniga maxamed harad baan idhahaa ha reey maxamedow habareer baadiyahan ahay anigu dadkan xamarna kala maaqaan gabartan igaaray aroosi rabay itiraasay mahan keentay xamarkan weyna keenta anigu waxa waaye ninka dartiinaan u imide maandhow waxaad qabataa uma waa shaqeeyaa wiil shaatiisuna u cadyaana waahay maandhow haddaan shaati cadnimo wadatide waxaan ku weydiiyaa maandhow xaa qabataa waa shaqeeyaa baan ku iri maxaa qabataa maxaa ka shaqeysaa yani doctor baan ahay dadkan dabiiba dhakhtarata dhakhtar ahayno kiidna daawey lahay alla ka dhigo haye soo dhawow igaarkaygiyow xaad kalood macnaha haddaan waxa waaye dadkan adduunyadan joogo way iska mariya badan yihiin maradaadu yay tahay Puntland baan ka imaamo adiga Soomaaliga waa fahmeeyo igaar raayaad bad aad iyo aad sax haye beer Puntland aad tahay aad iyo aad marka haddaan Soomaali waa isku Soomaaliye waa ku soo dhaweeyaha igaarkayga waadna raysaa gabartayda Faadumaana waa soo hadalnay inay igaarkan dhala la sheekaysato waa ii sheegtay inay howshiina dhamaatana waa ii sheegtay haddaan anigu gabartayda waxaan ku leeyahay mid kii dhaqi lahay allaha ka dhigo laakiin waxaan ku weydiihayaa maandhow haddaan ma Puntland adiga geeyay mise beledkaan dhigan uga dhaqi rabtaa meesha rabtaan ku dhaqanayaa maamo Allah meesha rabto unuka beledkaan naqaan maandhow Puntland ma naqaanee haye insha Allah bal ay iidaysa soo wareysayno anigu haddaan waxa waaye titoor haye waa dhakhtaraan aamiidhino dhakhtar ah iyadana waa daaweyna dadka dariskana waa daaweynaya maandhow diris daawo lagaaga ma rabee unuka jawayna daaway iidaana ii darana ii daaway diyaar waay maamo diyaar insha Allah haye igaarkay ila ku rajeenay haye xabartay maraysaa igaarkaygu waa raayaa haddaan saata ilaahay xamdigiisa waay anigana waa raayaa mahana iska fadhaa mahan xaa ku fadhiisiyay maandhow waa li balmiye gabadhaada ay balmisay ilaahay amarkiis gabartayda aan igaara ku imaahayo iska baraayo habartay caawa igaaran ku keenahay itirema ma waa kana igaarka waa kana iska baro magacayga Maajid Allah si naxariis le balaala way dhihi kartaa gabadhaadan Maajid cadde ay taqaana Maajid cadde maandhow magacaas Maajid ka maada la baxma sabartay adoogaa ku baxsheen hoose kula tahay hooyade inaad adiga iskala baxdood meelahan ka keentan u qaba saasay tahay kii habartay adooga ku baxsheen aan rabaa in halaan meelahan ka soo daftaan ku fala anigu waa dhow gabartayda Maajidkan siiha Maajid waa magacaas waa dheeriyahay marka dadka inta badan Maajid adiga magacii Abdi Maajid hooy macaan ha Abdi ide adiga Maajidkan iga leer Maajid idinka isdhaa daarabtiin anigu Maajid danka mali haye hooy haye maandhow soo dhawow waa dhawa hadda waa u jeedaa konton furaa gacan garabkaaga ka raaxa waxaan wixii gabadhaada lagu baarin lahaa hooy waxaan furaa maqaasiin la waay waxaan maqri maqaasiin waay fura maqaasiin oo dhuxul ku jiro oo moos ku jiro yaa mamucaane inaad bixisaa iska dheh arrin waxa ku weydiiyaa weydii halahan furaa maqaasiinka dhuxusha iyo maqaasiinka mooska iyo adma lagu yimaadaa beledkan beled iyo shidantaa beledka oo ma lagaaga sheekeeyay haddo adna shaqaraysa ma qabatid inaad moos iyo dhuxul wareejis ma waa shaqaraysa waa shaqaystaa aniga jid ma taagnin inaad ka wajibisaa ka rooneed fiiri dad jidka ma taagnin dadna ma dhici waxaan gabadhaada wax dhacaba gabartayda siisa ma maandhow waxaan ku weydiiyaa weydii haddaan horta dadka in la iska bartaa igaarka way warayso bal dadka aan ka bartay barkaad iga jirtaa wallahi aan dhinacaasi Itoobiya dhagaxlay meelaha ka jira ma Itoobiyan ka keeni karaa gabartayda aawada billah dowri tanya Itoobiya ma jaraa gabart ma gabadhaas Itoobiya ma geenay ma hani kula doolare ma adiga asalkii uu Itoobiya ma jirto asalka haduu hadii marba hadii gabadha is qaadana ma aragtay adiga ka wareegtay xilkaas
gabartaada waxaa la yiri reerkaad siisato oo gabartaada aad ku darsato reerkaasay ahaahe muga aniga haddaan kadib inaan Itoobiya gabartayda ka jarshamaynaaqe wax ila jarsho goorbehela iyo minaan isfahanay ma goorba Soomaaliya dhinac Itoobiya ka degtaan maqlaayo meelahaas kilinka shanaad iyo walax laga sheegi jiray bal meelahaas ka jarjaraahe Soomaaliyaad uun ila muuqata Soomaalina ma hay jirto way isku kay Soomaaliye si fiican laakiin Itoobiya qabiil maahan qabiilkaaga ma ii sheegi kartaa hooy anin karal kidiraa karalna kibir jabshaa maqli jira si fiican waa cidaan maqli jira mahaas ma aadido mugad Itoobiya meel cilniya dhul ii sheegi fiir anigu Itoobiya ii sheegay asalka waay asalka salaam calaykum anigu Itoobiya man dhow ii sheegto Itoobina dhulan oo aqaan hadan Soomaali Muqdisho diilira Muqdisho gabar siisaa ma aad way hadan soo dhawow igaarka maqaasiinka iyo dhuxusha dhulkan ogayna ka yimiday hadda waxaan ku weydiihayaa hadda naa kala ma qabta adigu xoogay nin weynaad u eg tahay waxaan ku weydiiyaa laba ii joogto laba ii joogto inaad ku saddexaysaad rabtaa maxaa diiday ilaa afro bani afar oo bani أنا هذا مسيرتك فهو يسعير جه أنا بروح هاي حوجي ديجا عائلة يا من مندو هاي باي سوم كوشة جنيدة إذا بس كسور مرسيبة هل إن إحنا قبيه يترى هل إن إحنا قبيه وعيس هذا برت يوسف كودي إن هو صد وجسوس ترتريس أنسي إن كويديها إذا ما أجيني ميا ها ما هذا رنت إنا ما دوا مقتها أنا جوا كسا ريرها سسك بدن ما شاء الله المها سسك بدن إذا نعيك جلي إذا هالي كنت عمها وكسب بلنتين ما بنت اللي زوج استجيب درا الكهين بل هدي رالي كنت هدام أنا وايش كل عبينا هنقبا كودة جبرتي أنا وحوجي مدحنون أمر بالله كديت رابرتي كواس ويجي جعلي هاي أنكو وإذا أرت أنكو ديدا نقنعكو ربك كامر هبي كره بل ما عنده وايش كسر نقينا هي إلهي يكسر أروريو ما مقرح أوك سلام ما عنده واقع قاعدة إنسى جبرتي ما هي ما مضيعني هي أقول كلا صوعنا دانو ما معلسي ما هو بلا ضياقة أنا أقول معناها قروح ذي لما يضا وضد السعطات بس وش كان ستي أنا قاعد قربت قروح ذي ده وضيع يقول هستي قوانا هذاك قروحهم به الضوء يقال عاسي والدين وقن جاكته ما معنى عاس والدين مي أنا أقول جبرتي إذا نك أروسايو وإيجار كيجي عند الأكله وصح يا واقر حنتا جبرتي هذاك قرحان هذا أنا قاعد يقول كأنت شو كانسي جبرتينا عاد شو كانسي اسمه هذا بحشوهاي ماما هلا يا من إبراهيم هاشمي اللي ده حلو يره إبراهيم هاشمي إبراهيم معناه مجيء وجيلوكا سهل أفك عليه وحصلنا هذا الجورة إرجع داي يقصوا أنا قحوجي دجهان كعروس حادي تري إبراهيم هاشمي 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 ميلانكم مقلي جرا إبراهيم هاشمي أنا اللي ده هذا مقلي ما هاشمي قاس ميلانكم مقلي جرا هرتادي انتو هيسين هدان أنا قروح ذان جبرتات أركتان كل رأي هدان هيس كلا وريجين جبرتي إذا ما يقصوا جرسة ما عنده مسوا كعلا نقضى ما جبرت هذا كاسو جرسة واي إيجار كيجي يو عن حدنا هي أوكي هي ميل هذه لا أدي أوكي ديارة معناه واحد أنا كل شيء مامو أنا بيس عجبي عوض أضيع حان إلى هذا قبل هذا مكبو ذا يا ركي جبرتي صادون تابع قرحان تأيري يا ما قرحنا عوض ورقي ميا لو واحد يحاول ضجوا سجايا هي إيوه ماما أنا اللي حتى سليتكم مرنا بارني ما فيري إيه ذا أمري أنا إيه مريني قبل هذا أسبوع عسنا قعدنا هرت هالأسبوع هاي مجا هالك أسبوع استقينين هالمادام كويديا مسجد البلد كان اسكو شو كان سيسين مثلا عن تيار سعر كجري أو أضاقات بإيصال شو كان سدال لما جنبرس أجدي جرتي ما هي تلفونك أنا إذا مدي جرين تلفون بس أكود هاللي جرتي تلفونك مالنتنا سعر كجري مال في حشية جرتين ما ندو نيني ناقو حشية جري لي أما أنا على السلح ساعة على شو كان ساعة أبي طول عمري جاي ماركين عودية اللي اسكو سود ده يسجري ما بلد كان أساسية جامعة مركز أوصل درتي أنا إذا شيء كسجرني أكوي جبران جامعة أدرس أسي إيجار كان قارت حرق قال هذا إيجار كان قارت حرق قال إيجار هذا يسيل جا جبرت مكستو على إليه التحانك وأكون عاد إلا أنا كان ميل دحور رجو وعدم تمنو الباس ميل علاده جعلك جوري جعل
jacayl ha yaa amba adoogeed hal cawaalay tuscawadi lama nama arooso hadana ninaan ka jeclaha ma jirtay cawya waxad kala du sheegaysa saasoo kale hata isbuucaas naqaana maamada iga soo doonay dhahday haye waaye haddaan waxaan ku weydiihayaa horta maan dhow adiga midka surwaalahood wada taambii qancin laakiin goorba kaa badalahayse waxaan ku weydiihaa maan dhow ma shaqaysaa waa ii fadhisaa waa ii fadhisaa xaal yidhi haa fadhiyo micnaha waa shaqeeyaa haa asaas idhaan wax fadhiya ma aqaane maha sabilo waa fadhiyaan maqli jiraaye waa shaqaysaa aad iyo aad maan dhow waxaad ka shaqaysaa xalwadan kariyaa maxaa karisaa xalwadan kariyaa haa xalwadaba waa shaqo waa maantii hore waxaan dhihi jirnay qaxwo xaraaran ku cabaynaa noola soo dhiiba xalwa waa waxaan aqaanaad ii sheeg aad ani micnaha wax aan qaban ku dhaay waa qabtaa gabadhaada way ugu qanacsan tahay xalwadeeda way ka warqabtaa waxaad soo siisaba xalwada waayo u fila wax walba waa ku heshiin aniga meherkeeda xataa waxay dhahday $10 waa gabartayda meherkeeda meeqa waay $10 niman yahow aa idin weydiiyey $200 baalweyne ma ahaynin oo $10 waa hoogtay fiiri maamo gabartaydi waa hoogtaye waxay kale dhahday aniga ma maseer badni naagana waa ku ogolahay inay la guursato haye xalwado wala xog dara halka marka waxa rabaa inaan soo Google fariisto lacagtii keeno cid li isiyo gabadha aan gabartaas qaalma geelahan ka rabaa kowdhe waa qalanjiluulo qaalma geelahan ka rabaa waa u qalad adna $200 baalweyne had ma la soo roogsato kowdhe laakiin waxaad ku heshiiseen anigu diidi maaye waxaan ku weydiiyaa maandhow naagaha kalena ma uu sheegto ma tiri naag kale ma qabtaa maya hadda ma qabo laakiin anaa kugu daray markaad aroostidaad aroosi rabtaa ha hadda anigu cudur meelo ii soo fadhiisan rabaa iidoo jirana ii imaan rabtaa ha ka baqan anaa yaa aan gabartayda anaa ma sayray iidana way ga darantay maan dhow wax kale ma ii sheegay way isku ka qarqarisay maama gabadhaada anaa dejinayo adigana hooyadeeda taa anaa ku dejinayo ani ma dejay ha adoogeeda ma dejiyay aan ka dejinaa xalwada ma wax iigu soo diri rabtaa xalwadan good sidaan bacunayn horaan uu ma cunin hadda maanta hore hadda ma ayaan dhaxdaas xalweyn oo keent aan ma cunin ilmahaansi taas waa ka badbaadee dacwada wax walba hayay aan la soo fadhiisanaa karood ku dilcirid weyn waxaan ku weydiiyaa arey waxaan ku weydiiyaa adigu hor waxaaba taaraaye yaa igaar fiicanaaba tee yaad u dhalatay maandhow aniga waxa nin habar gidira habargiidi aadiyad yaa ka tahaman ku ira ku dhihi ma gabadhaada markii aan ila joogto farxad bismillah laakiin hadhow guriga mugay tagtay masiibo la kulmi rabtaa may ka shaqin naagaad ma sheegaysay xaq ugu dhacmaan waxaas diyaar la isku leeyahay ana xataa waxaan jeclaa naagayga inay agteeda wada degan yihiin ay ku agfa fadhiyaan kala ilaalaha iyo xataa ana ma jecli nimanka abargidir saas ma ahayna ma dhow habartaa ma cid kale ka dhalatay nimanka abargidir halka xabay aroosanay kooxsi jireenan maqli jiro muga ma asbaladkaas joognaa la dhihi jira dad nin abargidir aroosi lahaadeen kiligiin jawiyo idin qabil lahaay ana la dhihi lahaay kuwaan meelaha rogrogaan nagala ilaali lahaay ka jiro waxa waa aniga Soomaaliya kuma soo barbaarin Talyaaniga ku dhashay Talyaaniga ku barbaaray inta la keenay wuxuu surwaalka kaaga jeexjeexan ama mid Talyaaniga ayaa hadda waa maqli jiray Talyaaniga hebel ka yimiday hadda koor cad iyo koba cad laga keenaa koba madow iyo koba kooral Kenya laga keenaa maqli jiray haddaan adiga kobahaas surwaalkaas aad koorkaas ka keentay mi Talyaaniga aheede maandhow horta soo dhawow koowdhe maamo ay daawis inaan ku daaweey inta ku raadaaba qurux igu sheegay awada hooyaba maayi adooga inaan dhinac maraanba ka cabsaay oo saan isku daydayaay ila igaaraabi soo yiri gabartayda soo doonto waa qurux badan tahay maandhow soo dhawow magacaaguna Ibrahim inuu ahaayaan jeclahay Ibrahim هاشم كاس انت ما يديكتid هذا قبا كريم بن هاشم ان مقلي جرا ادان سو هل بن هاشم ان مقلي جري هر بن هاشم ان مقلي جري ادغنا برغديراد aaday ماما magaca qaba كريم هر بن هاشم حيدي ويسه هذا قبا كريم لوسلي واسكي dhigi kartaa waxaan ku dhaha لوسلي ها ما لوسلي ها ما لوسات soo finjili jirtay ما macnaa neenasteedu waa idiin loos ma u baxo ما loos ma bax macnaa loos kan jeclaano لوسك ما جعسه هذا فنجلي ما يصير قبرتين هاي وكاسا هذا سود دوا وكسود دوينايا لكن أنا قبرتين أسكن نقينه أنا حوجي أنا حوجي أنا بمضى حنون إنجليزي قبرت هذا كورن إجواش الرواش صافيرسة هاي ماما هاي إيجاركي ماذا كوركيس هاي شو كان غدو دمسي برامجك
halkaas waxaa taagan ilaa 4 qofood oo ugu dambeyn la hadlayay maam raxmo kalena hadlayay sida uu soo doona lahayn maamada gabadheeda waxa rajayna inaa wada sheekaysateen oo aan rajayna inay su'aal kuugu dhineen Soma ma igaartan waa sheekaysanay su'aal kuugu ma dhinno su'aalan iigu ma dhinno waayahay waxa laga rabaa afartooda iyo noqon doona wiilka aad dheeleed uu mudan yahay gabadheega sababta wiilkaas aad ku dooratan inoo sheeg intaas uu kaliya shuluqan kiila maamo horta afartooda soo dhawaadaan waa igaarteyda gabarteyda cadaana ii keentay igaarkay gabartaada ku keentan hadda waxa igaarta waa ka raaya habarti horta waxaan idin sheegayaa aniga maamaahidan ku dheerahay agwaanad beelo waxa la dhahaynaa maahmaahiyooyinkan soo jeediyaa waxa waayay habarti waxa la yiri gabdha dhasho igaar ma weyso habarti igaar dhashana gabdha ma weyso sababtay tahay habarta markay wiilal dhasho gabdha u imaanayaan wiilasheeda raadinayaan habarti gabdha dhashana waxa u imaanayaan wiilal gabdhaheeda raadinayaan marka horta maahmaahyadiina xoogay waa gashtay iga raali naqdo waxa ay kulaal madax dooli kama xijisaa la dhahay maadaama dhaqankaygu uu yahay iyo barnaamijyada maahmaahyada aniga igaartan ma soo rogto waxaan ka doortay igaarka shiiqaaleed oo dheer oo waxa waayay يعني haddaan waxa waa inta kalena heeska raali noqoto waxaan idin dhihi lahaay idinkana muxumidiin gabdha kale Allah idin sahlo igaar horta waa baraaya asigana waa titoor hal mooskiyo dhuxushiyo isku sheegay laakiin hooyo mid dabala doorataa qofkan hadda gabadhaada muxuu sheegaa waa igaarkaygi horta soo dhawow su'aashaada hadaa kaaga jawaabo igaarkan culimada ma ku raacdo adow dabdaal yahayna gabartayda baahi ag aad gabadhaada waa rawaa mee ku dhahdo mise adaa go'aan ka gaartay ana go'aan ka gaari wallahi dabala u doorto gabartayda ana go'aan ka gaari ay adiga leh maama kan maxaa gabadha ugu lugeysay maamo ninkan jilbihiisa fiiriye aad maxaa u qaban leeyahay doctor noocay tahay adiga waa rayso titoora ee kowde xaar baa ka buuxa qofkan gabadha maama kan waxa uu qabtay كذا كذا يدك هلانتك دفنه ما واتشو فير ما دوتو ay afgaad maamo kulli gabadhaada horta waxa waa naga fogeysay meelaha luuqyada kala dib wax ku jiraan bal ii barbar aniga hadaan luuqyada ku dayi lahayna adiga xoogay horto waxa waaye jeebkana baqiilaad ka tahay kowde inaad meelaha iska timidna waa sheegay wada nin raayad iska dhigayso meelahaas aan ka imid lahay laakiin mugaad maharkeedii $10 ka dhigtaaba tilaaba iga dheerays ma wallahi horta maama adaa waliya wallahi horta waliyaan he gadaal ii fadhiisa mugow odaga cawada itir waa qurxanta mugaan iska soo furaa noo balana ayaa adiga markaas ay daaway saacada laga bilaw adaa ku fadhiya maamada dhamayd miya waraa waa daalan tahay markee ya war intee maamada ku geerayni waraa intee maamada ku geeray ya u dhib sigaartaay horta ana hadii la guuleysan lahaa oo dooran lahayn si wanaagsan oo hadli lahaa waa hooyo gabadheedan soo doonanay wayna wareysatay hooyo waxa waa gabadheeda mar walba wiilka u fiican bay u dooray wareysiga aniga qaadina waxa kamid ah in sadaqaanimo ku jirin in wiil shaqeystaan ahay gabadheedan oorideeda hadii ay noqoto aan ilaasanayo adigu horta gabadha butaca tahay kowdi xaaladda romantiga waa ku fashilmay hadda ka hor nin butaca waxa la gabar markii macnaha haraantii ku dhufataa Allah maandho anigu romantic ma qaano laakiin igaarkan wuxuu yiri ma taqaana reerahaygu badan muga gabartaydana gabardhin oo soo baxaysa waaye waxaan isla madax xanuun habra ka horeeyay kaaga dilin ilaahay waayahay Jakarta barnaamijkeena guuleystay waxa iska ahaa barnaamij entertainment ah waxaan arkaynay kulli qof waliba sida oo hadli lahaa barnaamijkeena intaas soo gabagabeynayna maam raxmaad oo maasan tahay adii kale aad oo maasantii kulli tan bixisay ma sadlay sidaas ay nabadgelyo